arrimaha doorashooyinka haddaba si loo suurtageliyo qabashada doorasho ku salaysan heshiisyadaas aan soo xusnay waxaan ugu horeyn aan ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada Soomaaliyeed in la joojiyo wax kasta oo dalka u horseedi kara xasilooni darro oo ay ka mid tahay siyaasadeynta arrimaha ciidamada kala qaybinta bulshada iyo burburinta hantida dadweynaha shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh waxaa maragma doonta ah in aan mar walba ayna garab taagnaayeen walina ay garab taagan yihiin ama ay garab taagan yihiin dawladnimada Soomaaliya waxaad muujiseen dulqaad waxaad muujiseen bisayl iyo dal jacayl waxaa markii la doortay aad u soo baxdeen ama aad ka soo baxdeen guriyihiina si aad guushaasi taariikhiga ah aad u garab istaagtaan ama aad qayb uga noqotaan waxaad mudan tihiin in dawladdiinu ay sii xoojiso dareenkiina wadannimo ee aad muujiseen run ahaantii marnaba dhici mayso in shacabka Soomaaliyeed loo horseedo burbur iyo qax hor leh sidaas darteed waxaan ugu baaqaynaa ama aan ugu baaqayaa dhinacyada abaabulaya xasilooni darrada oo ay ka mid yihiin siyaasiyiin shalay xilal dalka u soo hayay maantana doonaya inay xilkaas iyo mid la mid ah ay qabtaan inay u horseedaan foodo si ay kursi ay ugu gaaraan maalmihii la soo dhaafay waxaa astaan cad ay u ahaayeen sharka iyo khayrka waxaa loo qaybsamay badbaadiye iyo barakiciye intii aanu noqon lahayn barakiciyaal waxaa aan doonaynaa inaynu noqonno badbaadiyaal danaha siyaasadda way dhammaan karaan ama way iska dhammaanayaan waxaase waaraya ciidda iyo calanka ummadda Soomaaliyeed ayagaana mudnaan kale waxyaabaha kale ee aanu isku hayno waxaan garawsanay inaan ka hortagno hagardaamo kasta oo lagu beegsanayo xasiloonideenna iyo badqabkeenna shisheeye badan ayaa maskax maal iyo muruqba ku bixinaya sidii ay u marhabaabin lahaayeen horumarka ummadda Soomaaliyeed si ay u helaan ama ay uga helaan dana u gaara annaguna waxaan ku dadaalnay inaan gaashaanka ku dhufanno waxaanu diidnay in dhalinyaradeenna laga dhigto xaabo la shito gacmahoodana lagu burburiyo nafta iyo hantida ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed waxay caawa kala ogsoon yihiin ama kala ogaadeen cidda ka shaqaynaysa inaysan doorasho dhicin dawladnimada la burburiyo iyo cidda u hiilinaysa nabadda qaranimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh waxay caawa ka marakacayaan ama ka marakaci doonaan dadka xukunka ku raadinaya dhiigga dhalinyarada Soomaaliyeed iyo kuwa ku qanacsan inay xukunka lagu kala wareego sanaadiiqda codbixinta walaalayaal maadaama aan ahay ilaaliyaha dastuurka ayna waajib igu tahay inaan isku dheelitiro heshiisyadii siyaasadeed ee hore loo gaaray iyo sharcigii u dambeeyey ee golaha shacabka uu meel mariyay waxaa maalinta sabtida aan hortagi doonaa golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si dalka aan dib loogu soo celiyo hanaankii doorasho ee ay heshiiska ay ku wada gaareen dawladda federaalka ah iyo dawlad goboleedyada dawladda federaalka Soomaaliya waxay aaminsan tahay ama aaminsanayd walina ay xal u aragtaa in wadada kaliya ee furan ay tahay midda wada hadalka isqancinta isu tanaasulka iyo in lagu soo laabto miiska wada hadalka iyadoo la dhameystirayo
heshiiskii 17 Sebtembar iyo talabixintii guddiga farsamo ee Beedhabo ee Febraayo 16 2021 waxaan dhammaan saxiixayaasha heshiiskii 17 Sebtembar aan ugu baaqaya inay si degdeg ah la isugu yimaado si looga wada hadlo hirgelinta heshiiskaas kadibna loo wasiixo iyadoo aanan wax shuruud ah aan lagu xirin. ugu dambeyntii waxaan farayaa hay'adaha amniga inay ilaaliyaan xasiloonida caasimadda iyo badqabka shacabka Soomaaliyeed lagana fogaado wax kasta oo dhalin kara khalkhal amni. shacabka Soomaaliyeedna ay arrintaasi ku garab siiyaan ciidankooda qalabka sida oo habeen iyo maalin u taagan badbaadadooda. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ma ku nooshahay gobolka Columbus Ohio ee dalka Mareykanka? ma ku daashay shaqooyinka xamaaliga ee warehouse? ma kuugu badan yihiin biilashaad u dirto dalkii hooyo? ma tahay qof suuqa geyn kara badeecooyinka shirkadda Forever Living Product? ma tahay qof sumcad iyo maamuus ku leh jaaliyadda Soomaalida ee gobolkaasi Columbus Ohio? hadday jawaabahaasi yihiin haa, waxaa tahay qofkii ku habboonaa ee hore u gaadh shirkadda Forever Living Product. haddaba daawade, ka mid noqoshada shirkadda Forever Living Product kuma xidhna wax shuruud ah oo aan ka ahayn in da'daadu ay ka weyn tahay 20 jir, iyo inaad heli kartid dhaqaale aad u yar oo aad ku bilowdid marka loo eego faa'iidada aad ka heli karto. keliya magacaaga, emailka addresskaaga, telefoonka nambarkaaga iyo meesha aad degan tahay ayaa lagaga baahan yahay markaad ka mid noqonaysid shirkadda Forever Living Product. shirkadda Forever Living Product waxaad ka helaysaa warqaddii contractiga ee aad shirkadda la gashay, ID number adiga kuu gaara oo aad kaga adeegan karto adduunka oo dhan guud ahaan bahab online ah, qiimo dhimis iibka aad samaysay oo ah u dhaxaysa 5% ilaa iyo 48% oo cadadaad u weyn. maxay iibisaa haddaba shirkaddan Forever Living Product? shirkaddani waxay soo saartaa product ama alaabo loo isticmaalo isqurxinta caafimaadka iyo miisaan dhimista iyo waliba miisaan kordhinta. waxaanay ka farsamaysaa geedka loo yaqaano dacarta iyo malabka, wax kiimika ahna ma lahan. waxa ay samaysaa shirkaddani oo ay samayn doontaa ganacsi aad adigu gaar u leedahay oo aad maamulatid, adna aad ku samaysan kartid dhaqaale aad xad lahayn, oo aad ku maaraysid biilasha, oo aad kaga maarantid caqabadaha warehouse-ka. waxaad ku biiraysaa bulsho ganacsi oo si iswada caawimaysa. waxaad heli doontaa tababaro iyo aqoon kororsi bilaasha. waxaad u kala gudbi doontaa darajooyin waaweyn oo qadarintoodii qiimahoodana leh. haddaba darajooyinkani imise ayay u qaybsamaan? waa 13 darajo oo midba midka ka kala sarayso ay ka dhaqaale badan tahay. ta koowaad ayaa assistant supervisor, assistant manager, senior manager, sorting manager, diamond manager iyo qaar kale oo badan. dhammaan darajooyinkaasi waa kuwa aad xaqiijin kartid midba midka ay ka saraysana aad bay uga dhaqaale badan tahay. waxaad kaloo shirkadda ka heli doontaa waxyaabo la yiraahdo insensitive oo ay ka mid yihiin Forever Car Plan oo 3 gaari oo dalxiis free ah sanadkii 2 jeer. waxaad kaloo ka helaysaa shirkadda Forever Living Product Chaki oo magaciisa la yiraahdo Chairman Bonus oo lacag waaweyn dadka qaar mutaysan karaan oo malaayiin dollar gaaraya. GM Bonus waxaa la yiraahdaa iyadana oo ka mid ah waxyaabaha aad ka heliso shirkaddan in aad shirkadda ku yeelatay share joogta, lacagaha trillions dollarka ee ay sanad walba faa'iidi doontana aad qaybtaada qaadatid. haddaba haddii ay diyaar tahay in aad ka mid noqoto shirkadda Forever Living Product oo aad ku nooshahay gobolka Columbus Ohio ee dalka Mareykanka, fadlan hore u gaadh shirkadda Forever Living Product. si aad ula xiriirdo wixii macluumaad oo faahfaahin ah, fadlan wac telefoon nambarka shaashada ku muuqda oo WhatsApp iyo waliba link